موسى لم حسنة أن يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزلنا من شيء أنتم لا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة موسى لم حسنة أن يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزلنا من شيء أنتم لا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة muddo 3 boqol iyo 50 sano ah waa xiray qandarina degmo yahay la degan yahay dariiqan waa xiraa dariiq loo baahan yahay oo maaragtay ummadda ku haya dib weyn buu ahaa waxaan rajaynaynaa in guul laga gaaro idku moogala annaga way xadayihii xamilihintayooda لما حنانا هي قهرت حنوهم سودان وحال الصيحين بها لكن حيه التمر أما الجدية أما الجدية حيس كحه بين لهيهين ما تركوا إنه حماها دانوها حقيق قعان هنا نسيه قعل كي هداته معدنك ذهبك موتي وناقا هاي موتي وناقا على هذا اليوم أحدثوا مريان عرضينه معدنك ذهبك موتي وناقا هاي موتي وناقا على هذا اليوم أحدثوا مريان عرضينه تستطيعون تتعب الجحيم أصلا تقلت يدوبة وتدوبة عطاني لو ما أغذيها كنا فحي لو ما أغذيها إن الكلية حي لو ما عطاني لو ما أغذيها كنا فحي لو ما أغذيها إن الكلية حي لو ما أبلغ هارينا تهي صوبة وغدا وغينا تهي صوبة وغدا تقولين كوية صوبة أبلغ هارينا تهي صوبة وغدا وغينا تهي صوبة وغدا تقولين كوية صوبة
كوريا باسيجي قيبة أمريكا باسيجوا شلوا وعيتاي فائدة لغة يقص عنه بعد عشرة فائدة لغة يقص عنه عشرة فائدة إليه بشيء طبعا وأكون فائدة لغة سؤال صدحات شيء فائدة ما فرق ثم يا فائدة المغلقة باشيء سؤال صدحات أفراد أفراد وحمد هنا في المغرب حمد صدر أحمد صدر حاجة صدر dugsiga iskuulkii magaalada Qandala weeye waxaan jeclaysanaa inaan wax ka sheegno maadaama aanu safarkan soo galay iskuulkan waxa la dhisay 1950kii waagii Talyaaniga maaragtay isticmaalka u yimi kadibna muddo badan arday Soomaaliya ka baxday qaarkood waxay noqdeen wasiirro qaran qaarkood waxay noqdeen 17 sano oo burburka ahaa inaysan jirin waxaanu kaloo aaminsanahay annagu haddaan nahay reer Qandala in maamul goboleedka Puntland degmada Qandala khariidada in laga tiray oo aanu ku jirin waxaanu kaloo aaminsanahay hay'adaha caalamiga ah in loogu sheekeeyo degmada Qandala ma jirto ama waddo ma leh ama bad iyo bari midna lagama geli karo waxaanu ka codsanaynaa maamul goboleedka Puntland oo madaxda ka yahay Cadamuus waxaanu kaloo ka codsanaynaa hay'adaha caalamiga ah kuwa NGO-yada ah dadka hantida leh mutacalimiinta siyaasiyiinta degmada u dhashay dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay wax nagala qabtaaneen hawsha aan ku jiro oo adeeniina ku aragteen oo gaar ahaan qoraga aad aragteen oo hoosta ka soo marteen oo dhinaca ka eegteen meel walba ka ogteen in lana ka caawiyo intaas oo meelood oo madax ka yahay maamul goboleedka hay'adaha caalamiga kuwa NGO-yada mutacalimiinta siyaasiyiinta iyo dadka u dhashay degmada oo hantida leh annagu xoog wax kuma qaban karo waxaan wax ku qabanaa waa bawiil iyo gaweyn qoragii aad aragteen wax lagama qaban karo inayna ku soo aragteen waxa kale oo jira cisbitaalkii sidoo kale waa soo aragteen dugsiga waa soo aragteen dowladda hoose waa soo aragteen daarti cad waa soo aragteen dadkii degmada u dhashay horta eeda gaar ahaan waxaanu saaraynaa marka annaga reer Qandala dadkayaga mutacalimiinta oo siyaasiyiin maamulka intaas ayaan rabnaa dadka inaan u sheegno iskoolkan iyo taariikhdiisa iyo waa sheeko dheer weeye laakiin iskoolku hadda sida u jeedaan halka galaas kaliya ayaa wax laga dhigayaa intii kale waa xiran yihiin meeli kale waa xiran yihiin sababtoo ah wasaaradda macallimiin ma ay keenin macallimiinta hadda joogta macallimiin community-gu keeneen waa iska qabso marka waa nasiib darro maanta qarnigan ku jiro 2007 inaan degmadaanu iskool ay lahayn وبالله توفيق